المشروع عن سوماليا اللي يراهده جونوغوسد كاهي كل أنيجا مرة بوين موضي إنه سناهين مشروع long term sustainable سوتوها وحقوق مشروع عن كل سنة reality أمس يعني حقيقة دبت عن كل سنة أيها وحالها الله شركة عيب بروحه شركة سداد ورئيس تضخ كقيب جلي يصير وحود عيين يو مركلو دواغي مشروع عن جونوغوسد كا dadkan sool sanaaga yahayn kamid ma ahaynba yani waxaaba taa hore oo waad mid ahaan jirteen iyo waxa ka sokaysaba tii lagu aasaasay Soomaaliland ayagu dowlad partoid hebel baa joogay iyo Cabdiqani Garaad baa joogay iyo waxaas iyo yani dadka si dhab ah dadka waxay u tageen meeshaasi in maadaama dowladda meesha ay ka baxday dhexe maadaama loo orderkii uu buray in sidii nabad loogu wada noolaan lahaa in laga hadlo kabacdina dad iska xamaadaysan ayaa mashruuca ku dhawaaqay إنفان أسنمتا مركز سوق الشيء عبد الرحمن ترمى هذا وها تعال كما هين جوني قصد كوانا مغشين عبد الرحمن ترمى هذا وحوم هذا مركز اللي يرو إلا وين لقوا مركز ده كان صور السنة عين مرنا بارتكم عين مشروع جوني قصد كاي مركز لقى صوت تقطع ويبقى واقعين بقى مشروعه ديشور يدفعته من مشروع غير قال ما هين ليه قالينا الدور ما أقونسن سومالي ما أقونسن جيبوت أنت وجرت ما هي سأقونسن إثيوبيا ما أقونسن إذا أقونسن ما يجرت مركز legally sovereign entity oo jirta ma ahayn de facto in badan oo dalka kamidana dibaba aysan joogin ba ilaa hadana ma jooga oo Soomaaliya sanaaga cayn kamid aha marka hadaysan marka horana dalkan aysan ka qayb galinin de facto iyo de jurna aysan u jirinin de mashruuc marka shaqeyn kara marnaba ma u sanahay ana waxa islahaa yani wuxuu tari kari lahaa oo kale waxay ahayd gorgortanka Soomaaliya maadaama laga dhawaajiyay in la heshiyo dib loo heshiyo dadka dal loo mideeyo in go'aanka ereygaasi inuu wax u gooyo oo unionka Soomaaliya la yeelan doono maadaama tiir ay qawadeen in ay gorgortan fiican ku helaan taasna dad badan Soomaaliya xubka kama qabinba walaal hadda ka qabtay ma jiro hadii dadku ay sheeganayaan in ku dulmanayeen nidaamyadii hore oo jiray in nidaamkan dambe oo Soomaalidu wada dhiganaysaay in ay doodaan oo u doodaan power ku sheegankooda waa wax jira weeye wana wax la ogolaya wax dhibana arintaas ma ahan anu laftii waxaan aaminsanaa in taas wax laga sixi karo wax badan laga saxo oo grievanceskaasi maadaama Soomaali aan nahay oo rabo dalkii in la heshiisiyo ummadii ay heshiiso grievanceskaas oo dhan in matala meesha ka baxaa hatta idii loo soo burin karo oo dib sheeganayso loo soo buriyo dad badan baa aaminsanaa dibtaasina ma aysan jirinin issue-gana marka de logicada dabcan dowladnimadu waa social contract waa heshiis bulsho marka qaarkood heshiiska bulshada haddii qolo ay dareento in yani la violate gareeyo contractkii aan dhiganay social contract aan samaysanay haddii violation ku yimaado oo qolo ay dareento in lagu xadgudbo lagu joorfalay dabcan way sheegan kartaa oo oran kartaa anagu heshiiska waa ka baxnay وانا وحسك يونيفرسال موقتها او طبعا ما dhacdo dawladuhu ma ogolaadaan oo dagaal ka dhax laakiin principally waxa la yiraahdaa this is an issue of self determination marka de logicada khaldan waxay tahay mar walba iyaga oo doodooda ahi okay Soomaaliya waa ka go'i karnaa annagu oo xaq baan u leenahay waxaba reason doona sheegaane laakiin idinku nagama go'i kartaan marka this is the maaragtay the logical aan shaqeynaynin waxaan isleedahay mashruucaasi soddonka sano waa lagu soo mooday Soomaaliya ku soo mooday laakiin midda kale ogaada ma soo sanaaga yacayn in dadka leeyada beesha dhexe in badan oo kamid ah ayaa waxay aaminsan tahay mashruuca inuu soo shaqeyn karinin ragii jabhadda ugu horeeyo wax ka aasaasay oo tagay SNM 1982 nimankii kamid ahaa ayaa dib waxay u bilaabeen wala socotaan mashruuc la yiraahdo mar kale iyo midnimo oo Maxamed Baashi Allah naxariistay dhintay oo kamid ahaa dad badan oo beesha dhaxal laftigeeda ay waxay dareemeen in mashruucan 30 sano wadnay mana shaqeynayo meel uma socdo marka ummadana la wareerinin oo Soomaaliya la heshiiyo wixii ay u goyso dib dadka loo heshiiyo dadka xawaaye ma jirto yani dadka shaqaan baa jirta dhaqaale xumo jirta dhalinyaradii taariikh ku dhamaarayaan Hargeysa unemployment is very high in badan oo kamid ah dhalinyarada reer Hargeysa iyo reer Burco ay arteen xamar bay u yimaadeen soo shaqo doonteen marka mashruuc long term sustainable marna ma uusan ahayn shalay waa dhageysanaysan fasaxa waraa wuxuu lahaa
war haddaan Soomaaliya aadaynana inagoo soconna aan aadno waa muuqataa marka yani the end this is the beginning mataqaana dagaalka wuxuu ahaa the beginning of the end of waxa loo oran jiray mashruuca gooni-goosadka ayuu ahaa nasiib darradu waxay tahay laakiin mashruuca maadaama uusan leeyahay mashruuc sax ah uusan ahayn dhibta uu geystay hadda ayaa waxay kasii dhigaysaa mashruuc faasid oo aan sax ahayn sababta waxa weeye wixii laga ka eed sheeganayay 1988kii iyo dhibaatadii dhacday iyo dowladdii dhib la mid ah to the extent of course yani aan waxba ka duwanayn ayaa ay ka sameeyeen laascaano dad maataa loo laayay dadkii oo la qaxinayo mataqaana maxaa la yiraahdaa birmageydo la laynayo caruur teerada aragteen mashruuc ka sameeyay ilmo yar yar oo reer dhan oo aan waxba ka harin oo la gubay mataqaana aad baan ugu xumaa anigu 1988 marka ay dhacayso arrintan May 1988 ay dhacayso anigu arday baan ahaa Vanderbilt University Tennessee ayaa waxaan ka sameeyay Masters Program of Economic Development runtii aniga oo scholarship dowladda ay soo ku baxay aniga oo yani shaqaale dowladda markaa wasaaradda maaliyadda u shaqeynayay aad bay ii dhibaysay wixii dhan ka dhacayay oo shirar badan oo nina waxaan ka xasuustaa original Sam Gateson oo congressman from Connecticut ah hiriyin badan uu qabanayay oo congress lagu qabanayay Tennessee inta kamid baan ka soo qayb galayay Washington DC imaanay sababta waxa weeye ilama muuqan in waxaas dhaxaya ay sax yihiin inay crimes iyo jariimooyin la galaya ay ahaayeen ayay igu muuqdeen aan u dareemayay sax daraadeed tan raali lagama noqon karo dib qof Soomaali ah oo in cidda doonta ha noqoto ama Soomaaliha noqoto ama ajnabi ha noqotee in qof Soomaaliya la dhibaato iyo dib loo geystay waa in qof kasta oo Soomaaliya ay dareenkiisa wax ka bedeshaa runtii waxaan hadda aad ugu faraxsanahay waxa weeye dibta ka dhacday laascaano aniga for the last 10 years issue ama yani arrin Soomaalida saa u midaysa ma fahamtay from waqooyi dadka reer waqooyiga waad aragtay dadka burca ka hadlayay odayaasha ka hadlayay hargeysa dadka boorama ka hadlayay yani ilaa koonfur yani khaladka sida ay dadku u wada arkeen oo ay u arkaan يعني waxaas leeyahay waa issue kali oo Soomaalida wada mideeyay dadku ay meel uga soo wada jeestay raadeen this is not right this is wrong wax sax ma aha waana khalad in la joojiyo weeye marka runtiina anigu u malayn mayo Muuse bix wuxuu doon uu oran karaa actually waxaas leeyahay Muuse mashruuca midnimada Soomaaliya isagaaba soo dadajiyayba maaragtay runtii isagaaba mideeyaba ahba saana uu arkaa ma garatay inadvertently kullu isagu niyadiisu ma ahayn laakiin habdhaqankiisa ma garatay oo dad badan waxa kiciyay waxaan isleeyahay waa habdhaqanka yani kibirka iyo tooqa iyo isla weynida musabixi iyo dadka lamid ah iyo cayda iyo aflagaadada Soomaalidu loo geysanayo gaar ahaan dadka gobolkaas ku loo geysanayo oo Faisal Cala Waraabi dadka lamid ah ay ku hadaaqayaan weeye waxyaabaha dadka sii kiciyay sii dhibay mataqaana ummaduna ay runtii ay aragtay inay ay khalad tahay oo ay meel uga soo wada jeesteen marka ama waa baxaya ha yiraahdo ama maaragtay ma baxaya ha yiraahdeen kulay hadee dadku kaba sugayaan wanaag hadda dad hadda sugaya Muuse walaalo waa ku bariyeenaa naga bax dadka reer Ascaarood iyo dadka SSC dad hadda taas ayuu hadda mataqaan laftigooda u diyaar ma aha ayaga dalkooda xoreysanaya waa isku filan yihiin dhulkoodana qofna dhulkiisa dalku gubaysan karo dawladii taangiyada watay oo diyaaradaha wadatay oo miiga wadatay oo boqolka kun askarta lahayd hadii ay Hargeysa iyo Burca iyo Sabri Ukraine weyday oo ay xog ku hayn weyday dabcan Somaliland entity oo wax badan ba ahayn wax badan aan jirin Soomaaliya sanaag xog kuma hayn karto fact wataa weeye laakiin waxa fiican aqligu inuu shaqeeyo oo inta goor tahay dibta aan la sii badin xumaata aan la sii badin maxaa la nacaybka iyo Soomaaliya baan nahay adduunkuna dib u badan yahay in aan dibta la sii wadinin oo inta goor tahay lagu soo gabagabeeyo Muusana oo aqligiisu ku soo laabto oo ciidamadiisa kala baxo dadkaana u ogolaado in ay ayagooda ka tashadaan marka way tashadeen go'aan bay gaareen marka soo laabanayaan
runtu taawey marka inta ila la fahmaa inuu fahmaa fiican ma garatay oo uu garto the sooner the better hadduu garan waayana dabcan iyadoo oo more costly ah more deadly ah ayuu si ogaanayaa wayna kusii dumaysaa Somaliland kusii dhismi mayso dagaal dambe oo sii socdaay ayay u darantahay ma garatay